horta waxa imaanaya ilaaha subxaanahu qaadirka og waxa la yiri you cannot predict noloshaada future-ka ma ogaan kartid laakiin waa u sii diyaar garoobi kartaa aniga marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa xildhibaanadu mowqifkii ay qaateen inay maaragtay ay muujiyaan inay ayagu yihiin sharci dejiyayaashii ummadda Soomaaliyeedna ay fiirinayso laakiin anigu taa kuma qanacsaniyo waxaan u arkaa taatiik يعني marka la yiraahdo la fiiriyo nimankan meesha maanta wadanka haysta saddexda muuqatiye 8 qarsoon waa niman arintooda very sophisticated ay tahay oo la fahmi karin hadaa dib u jaleecdo maalintii hore waxa diiday in dib loogu dhigo 170 ayaa diiday baarlamaanka 120 kow markii la diiday in dib loogu dhigo oo hor yimaado qamiistii haddana waxa yani maalintii dambana waxay noqotay in la ogolaado waxay noqotay 120 bay haddana noqdeen shalay kuwii yiri dib looguma dhigi karo 12 bay ahaayeen 190na waxay noqdeen kuwii ansixiyay anigu waxaan arkaa 14 casho inay tahay serial maqabata oo la rabo in xildhibaanada lagu kala furfuro sidii caadada u lahaayeen ku kala laaluushaan nin walba gurigiisa lagu tago nin walba loo diro oday dhaqameedkiisa nin walba la rabo in cirbad injection lagu dhifto waxaan u arkaa hadde la taqnadu bi rahmatillah naxariista ilaahay lagama quusto oo haday haatan xildhibaanadeedii ay isbedeleen waa wadankii oo bogsaday oo kale la mid tahay laakiin waxaan aaminsanahay waxaasu inay yihiin sidii lagu kala furfuri lahaa xildhibaanada sidii qayb iyo xukun fursad ugu heli lahaa ra'iisul wasaaruhu ma aaminsani inuu asagu xor yahay ma aaminsani inuu meel gaarayo ma aaminsani inay kuwaana ay ay leeyihiin haddaba markii hore waa u diideen in la siiyo waqti loogu daro maantana waad u jeedaa oo si cod xadaaf ayaa lagu ogolaaday in 14 casho dib loo siiyo dabcan wuxuu sheegay inuu xukuumadan dib shaandhayn ku sameeyay kala diraayo markaas kadib fursad la siiyo dabcan saas u dalbaday xaqiiqatan ninku markuu hadaf leeyahay mowqif leeyahay wuxuu aaminsan yahay ciidamada marka uu cadawgaagu jaba lagama haray waa la cayrsadaa sidaas awgeed marka aad aragto inta is haysata waxay ahayd maantayto fursadda ay heleen 120 iyo 12 waxaad u jeedaa sida meesha ay halka ay wax marayaan sida mar walba loo kala furfurayo anigu waxaan aaminsanahay inaan waxaas waxba ka socon anigu waxaan aaminsanahay oo aan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha inuu danta guud iyo danta asaga berito waxa la yiraahdo walaalka xoolaha waa la siyaxaniyaha lama siiyo wixii berito ay shacabku kugu xeerin lahaayeen wixii berito aad adigu leegasigaad adigu ka tagayso inaad nin kale u qooriyo xarabeesho wax dan ku jirta male haduu sida ay tahay baasha u fahmi waayo oo transparency ka dhigi waayo oo wax loo dhaxeeyo ummadda ay wada leedahay ka dhigi waayo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaaki oo looyalnimadiisii iyo yani mudeeciisii uu inta la yimaado haba wax systemka iyagu rabaan ay ku isticmaalaan waxaan aaminsanahay inuu asagu eersan doono laakiin danta iyo dalku waxay ku jirtaa maanta isaga ayaa ra'iisul wasaaraha fursadiiba ilaahay siiyay ilaah subxaanahu qaadirka waxa weeye in uu maaragtay saddexda nabiga kaleey salaatu salaam uu noo sheegay xadiiskii rasuulka oo maalinta yawm qiyaamah ilaahay ka sii jeesanayo oo yani waxa kamid aha waayeel nin xilihiisa inta wax ka qaadi waayay yani qof kale dumar kale sina u raadsaday mas'uul been sheegaya marka maadaama asagu uu mas'uul yahay oo ulul amri u yahay anigu waxaan dhihi lahaa in uu dawlad loo dhaxeeyo kuwii la dhibsadayna ka saaray oo ka bixiyo shacabka ay dhibsanayaan in uu soo xulo haddii ay noqon weydo casaa ay yakuunu khayran waxa laga yaabaa inay tanuba bilowdo kacdoonkii shacabka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa in ay noqoto fursad daabiya oo shacabka Soomaaliyeed uu ogaado xaqiiqada dhabta inuu san ra'iisul wasaare power lahayn inaan xildhibaano la isku haleeyo aysan jirin in ay markaasna ay shacabku lahaanshihii baa ka maqan iyagu ay inta gadood sameeyaan ay waxa weeye filada gali doonaan baan laga yaabaa waxaad muujisay tuhun in codsigan hadda ay soo jeediyeen ra'iisul xafiiska ra'iisul wasaaraha soo jeediyay oo soo jeediyay golaha baarlamaanka in laga yaabo tactic baad u isticmaashay si tactic inay tahay oo fursad lagu dheereysanayo si loo fahansiyo ama loo dhaxgalo golaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ma aaminsan miya in ra'iisul wasaaruhu uu dib u shaandhayn ku sameyn karo golihiisa wasiirada oo inta la isdhihi karo kalsoonida way waayay karaan oo ka saari karo booska taas ma aaminsan miya duraan wadanka muddo in badan oo muddo dheer ayaan joogay waxaan sameeyay barnaamij la yiraahdo marqaatiga nool waxaan maalin dhow ka hadlayay oo arrimahan uga faalo
bilowday dood wadaag waxaan ahay nin fiilka joogay anigu waxaan ogahay waxaan shacabka ogeyn waxaana kusoo bandhigi doonaa barnaamijkaygii oo markhaatiga nool haddii ilaa idmo maadaama aan tan aan uga hadlayno ma rabo inaan khaarijul mawduuc aan noqdo oo wax kale aan ka hadalno ma rabo laakiin anigu waxaan ogahay systemkani sida nimankani ay yihiin 3 muuqatiya 8 qarsoon Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaka haddii shalayba ay og yihiin inuu nool yahay maysan keensadeen haddii xildhibaanada Soomaaliyeed dadka boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay kuwa majority-goodu inay rabaan inay deynka ku jiriyo hoteelada deyntooda inay badsanayaan mooye waxaad ogaan doontaa sidii horey uu yiri Faarax Cabdulqaadir Soomaali markii saacid la ridayay ayaan maalin Faarax kula kulmay meelo waxaan ku yiri waxani ma dhici kartaa in kacdood ay keento markaas uu igu yiri Soomaaliya shilin u haysatay shidadooda ka baqin يعني arrintaas waa waxay aaminsan yihiin waa waxay ogaadeen dalka waxa la looma rabo ninka wax qabanaya la bedelaa nin aan wax ahayn baa meesha la keenaa adiga dib u raac fiiri madiini iyo dhaga badan iyo Cabdi Faarax Laqayo iyo miyaa la bedeli lahaa haddii dalka wax laga rabo Cabdi Faarax Laqayo ogtahay wixii uu hiiraan ka qabtay ayaa waxa lagu bedelaa Cabdi Fataax oo ogtahay يعني ويلكي جبرة واحد وجهه وحبا يراته معها وحني واحد دتكني وحي ربان والريفولوشنري إنه وحقب صدام وحي ربان ودنك 20 سنة كنتم سنة إنه حكومان بين ربان معها مد حل إنه رادين يان لكن حليس جوذا كشرته وحنا هو أو إكسامبل ونقنيسه haddii maanta ito xukuumadda Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaka Faarax iyo Cabdikariin iyo Sambalowsha laga reebo yes waxa la dhihi karaa halka isbedel xataa waxa weeye fiiri aan kaga dhaxgala taas adoo raali waa ka dhaxgala inta badan dadku wuxuu ku dhagan yahay shakhsiyaadkaasi waa 4 markay ugu badato think about that haddii inta codsiga dadweynaha iyo baarlamaanka la fuliyo oo laga saaro shakhsiyaadka la isleeyahay xogaa dadku ay afka ku hayaan oo booskooda shakal la soo geliyo shakhsiyaadka laftirkooda waxay leeyihiin taageerayaal aad u fara badan waxay ku leeyihiin golihii baarlamaanka soo jujug meeshaada joog arrintii ma noqonayso oo maxaan ka nuugaa maxaas ku nuugtaa kama imaanayso meesha maya walaala kama noqonayso nimankani Soomaali waxay ku noqdeen cancer waxaan ka hadlaynaa wax taajibul ah madaxweynuhu ilaa hadeer waxa weeye shacabkii kalsoonida siiyay inuu madaxweyne u yahay baa iskuma haysto wuxuu u haystaa inuu xisbigii yaraa oo waxa weeye damal jadiidka inuu madax u yahay inuu yahay gudoomiye kooxeed ayuu isku haystaa nin madaxweyne ah surkii labada garab u dhaxeeyay ah raatibkii tusbaxa isku keenayay ah iskuma uu haysto nimankanuna iyaga iska leh final decision ka waxa iska leh go'aanka ugu dambeeya waxa iska leh Faarax Cabdulqaadir waa la isku dayay waxa marqaati u ahaa saacid riditaankiisa baa ka marqaati ka ahaa asaga ayaa dominate gareeyay golihii wasiirada dhan ma lahayn wax baawir ra'iisul wasaaruhu ma lahayn wax walba waa u socon waayeen meel walba asaga dominate gareeyay sidoo kale waxa weeye waxay ahayd Cabdikariin international community ga Xasan Sheekh markay la hadleen markii Soomaaliya oo dhan iskugu tagtay hadda Cabdiwali ugu dambeeyay Cabdiwali Sheekh Ahmed wuxuu yiri anigu waxa weeye ninkan saaxiibadii baa maare looga waayay meeshanina saaxiib ma taale Soomaali oo dhan ayay u taala anigu markaan lahaa 9 bilood ka hor dadun baa suga haatan in adduunku samaado gadaal ugu siyaado saddexdiis jacleedii saaxiibadii sarkaan masuuloobi kartaa dadun baa suga haatan saddex aanu jeedniyo 8 talinaysa inay Soomaaliya dhan wadaan oo calanka saddex gees iyo Soomaaliya dhan wadaan oo salka guul ku furaan masuuloobi kartaa markaan lahaa oo su'aalaadka dadkaan hordhigay waxani waa national cake ما ها وح أو هالقف individual ليه ما أنا وحنا نقول هلا قياس مدحوينه صاحبتي يا صومالي وحضرتي صاحبتي بدورتي صاحبتي سنة ومنحان وحوي ونمن أن قلنا حين أسجع يا شعب كملنا سببته تهاي وفيلير فيري محاك دعي أوي مركي وجوه الرئيسي وحي مدحوينها كرات ليان وفارح عبد القادر عبد الكريم لما تشير وتجي أي أقلادين وأي ديدين هشيسكي جبل واديدين waxay baakab gareynayeen Soomaalidii kale iyo Bareehi Ilaale iyo la baakab gareynay Axmed Madoobe iyo qolooyinkaana way diideen markii ay 73 qof ku dhimatay oo meeshii dhibaato ka dhacday oo wax walba la ogaaday ra'iisul wasaarihi ku eedoobay isla markiiba waxay qaateen mowqif ah inay awaamiirta gabre u xariirsamaan
waa laga soo tegey 6 gobol bay tageen cabdikariim warqad buu soo saaray uu hambaliyey madaxweynuhu uu hambaliyey 6 gobol markay saa ku dhisantay 3 gobol baa yimid haddana waa taad ogeed waxay ku dambeysay waa ka sii tageen gobolada dhaxafiiri ahlu sunna maxaa ku dhacay aaway yani madaxweynuhu asagoo intaasoo disaster ninkaas uu galay oo meel walba 4 koona maanta dab ka socoto wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo asagu uu yiri kowdii hameennimo la doortay kowdii duhurnimo 7 saac oo duhurnimo filadii la galay oo uu markii dambe inta u adkeysan waayay uu asagii iscasilay ayuu ummadii haddana dhex keenay ra'iisul wasaarihii ku riday xataa asagu ma lahayn baa lagu leeyahay proposalkan faarax un baa lahaa mooye waxa weeye ma lahayn madaxweynuhu raalli kama ahayn in cabdiweli sheekh axmed la rido sidaas awgeed waxaanu annagu ma aha wax qiyaasee waxaanu ku hadlaynaa wax shalay dhacay ma wixii shalay dhacayna waa wax aad arkiifyada ku jirtaa wax lagu murmayo ma aha waxa uu qariyay ma aha baalkii madaxweynuhu qarsaday ama ay haysteen ma aha nimanka feelyadaas oo ogtahay ayuu wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ka dhigay maamul baa waxa loo sameeyay gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaa afkiisu cabdikariin ka yiri waa cancer waa in la gooyaa buu yiri shir jaraa'idan ku qabtay Nairobi aan ka sheegay 8 bilood ka hor waxaan ku jiray dadkii wax ka dhisay heshiiska u kala dab qaaday ahlu sunna iyo dawladda waxaan ogahay cadaawada uu qabo waxa la rabaa wasiirka arrimaha gudaha in looga dhigo sidee ku yeeli karaan sidee lagu yeeli karaa hadda aan soo noqono hadda yeeli karo inaan arko isbedelka uu sheegayo ra'iisul wasaaruhu allaha ka aqbalay waxay noqon lahayd inuu madax banaan yahay su'aasha ku weydiiyay dabcan hadda ra'iisul wasaaruhu golihii baarlamaanka maanta warqad buu horgeeyay codsi buu samaystay wuxuu yiri muddadaas la siiyo 14 cisho la siiyo ma laga yaabaa in uu xulashadiisa u madax banaanaado in kasta oo ay dastuurka ku taalo inuu wada tashi kala sameeyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya markaasna madaxweynuhu approve gareeyo laakiin wadankii dhawaan baad ka timid ma laga yaabaa in uu u madax banaanaado xulashadaas asaga ah teeda kale yaad is leedahay xulashada ra'iisul wasaaraha inta badan way buush gareeyaan oo gacmeeya yaad is leedahay saas anigu haddii aan ahay Umar Cabdirashiid Cali Sharma ka sheeg su'aashaadii hore duraan waan ku hormaraya baarlamaankan horgeyn lahaa waa la soo diidi lahaa waxaan dhisan lahaa mid aan u madax banaanahay oo la igu eedeeyeen asagayna faa'iido u ahaan lahayd in maanta baarlamaanku ay diidaan كبعدنا انت نبي محمد عليه الصلاة والسلام او خير خلق الله او وحي كسو دغو ايا الهي وحو ليهي صحابتي ويا لو امر يا وشاورهم في الامر لا شور ولا تشل ليهي markaas waxa weeye oo hadee aad ogtahay khayr khalq Allah inaka la taadi man ahbata walakin la yaadi ilaahay waxyigu ku soo dajin jiray leeyahay hadana saxaabadaadii la fariiso oo la dhihi jiray kanuma fikirkaaga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mise waa waxyi ilaahay soo dajiyay sidaas awgeed haddaan anigu asaga ahay mucaaradka iyo muxaafadkaba waxay leeyihiin dalkan ayagaa iskale waxa loo baahan yahay in waxay ahayd in uu inta asagu marka la rido tago oo labada garabba iskugu yeero baarlamaanka iskugu yeero oo dadka taladu ka go'do waxa national cake inta ka dhawaa halku ku xoroobi lahaa uu yiraahdo haye maxaan sameeyaa laanahu war dalkani wuxuu soo maray mas'uuliyiin lagu daydo sida aad la socoto duraan aadan cabdullaahi cusmaan markuu madaxweynaha noqonayay doorashadiisii ninkii santuuqa asaga againstiga ka soo horjeeday ku riday asagoo sanka haysta ayuu kii kale ku riday kaas uma uu fiirin nacaybku asaga u qabo laakiin wuxuu u fiiriyay wuxuu dalka u qaban karo asagii ayuu wasiir ka dhigay asagii ayuu keenay marka la yiraahdo Michael Maryama wuxuu ahaa nin kristaana waxa oo Tanzania safiirka noo jooga maalinta la tago oo jimcada gaariga wuxuu soo hordhigi jiray masaajidka iyadoo calankii Soomaalidu ka babanayo Tanzania xirto islahayd maadaama asagoo nin kristaan yahay Soomaaliya col isku laayeen dagaalkii 77kii ku coloobeen waxay islaayeen aad kaga faa'iideysatiin markii la xiray Soomaalidu dhan la xiray intuu maskiin iska dhigo dhan maryaqa foolxun qaatay kuwii si fiicnaa iyo baajkiisina bax ku ritay ayuu xabsigii jaraa'idada adduunka dhan u yeeray markaas uu yiri Tanzania ma doonayso Soomaali aan sharci lahayn midabka Soomaaliga dhan bay ka soo horjeedaa joornaalkiisa waxa lagu soo qoray title waxa uu ahaa
waxa uu ahaa yooka nasaa yooka masku mas buu dhalaa shacabku waxa la rabaa kala duwanaanshuhu waa quruxda bini aadanka the difference waa beauty of life ka nolosha quruxdeeda waxa la rabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake inuu arinta ka faa'iideysto inuu baarlamaanku rido nimankaas ka bacdina rag xalaala oo uu ku jiro oo nolotaankiisa taariikhdiisuna gasha international community-na uu uga helo cudud iyo taakula uga helo shacabka Soomaaliyeedna qulubtooda uu ku soo jiito ilaan ogow siyaasigu ma aha inuu xamaaliya oo guri dhisayo waxa laga rabaa inuu hanto the heart mind and heart qalbiga iyo maskaxda dadka inuu hantaa la rabaa sidaas awgeed waxaan aaminsanahay horta talaabadii ugu horeysayba talaaba ay iyagu leeyihiin inay tahay oo la rabo marka ma waxaan leedahay daraad waa kuwii soo codsaday waqti kordhinta baarlamaanka uu this is what I believe tani waxaad leedahay waa taatiig kamid taatiigii hore taatiigyadoodii kale lagu kala furfurayo qayb iyo xukumaho nin walba ninkii loo dirayo Cabdiwali Sheekh Axmed waad ogtahay hadda waxa la maraya konton kun buu gaaray waxa lagu waxaynayo lacagtii ciidamada la siin lahaa lacagtii wax lagu qaban lahaa duraan dawladani waxay ku qabataa waxa weeye ra'iisul wasaare la dhisayo xukuumad la dhisayo xukuumad la ridayo ayay dakhligii ummadda dhan ku baabiisa transparency male xisaabtan male waxba male wax laga waxaynaya male baa maasta awli wasla joognaaniya adiga dabcan aaminana wali lama soo gaarin qadka taleefanka dadweynaha waa fiirinaya shucuurtiinu waa soo bandhigi kartaan maantayto sida aad la socotaanba golihii wasiirada jiray 4 cisho oo la doonayay in loo gudbiyo golaha baarlamaanka kalsoonida codka ay u qaadaan ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu doorbiday ama goostay baarlamaankana ka codsaday inuu dib u noqon doono waqti fursadna la siiyo muddo 14 cisho arintaas sidaad u aragtaan maxaa ka imaan kara maxaa laga filan kara barnaamijkeenu arimahaas ayuu ku saabsan yahay waxa maanta barnaamijkan ila qaada dhigahayay ambassador Abwaan Maxamed Xuseen Awliyo iyo waliba ex xildhibaanad Aamina Maxamed Mursal oo ahayd wasiir hore oo magaalada London ku sugan dabcan ayada ayaan sugaynay wali naga soo gaarin barnaamijkana waa barnaamij aragtida dadweynaha fadlan adigoon cidna aflagaadeyn waxna aanu dhimin dareenkaaga ku aadan ama aragtidaada ku aadan arrimaha maanta ka taagan magaalada Muqdisho ku soo bandhig nalana wadaag waana soo dhaweynaynaa qofka ugu horeeya nasiib ku yeeshay waa soo dhaweynaynaa halo ma maqashaa halo 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 hadduu ku jiro qofka waa soo dhaweynaya halo ma maqashaa halo waayahay waa sugahayaa ilaa iyo dadka taleefanka ay soo galaan awliyo waxaa tahay sida titlekaaga ka muuqda ambassadorkana waa haaf madaxweyne marka uu adduunka marahayo dabcan baryahana dowladii aad ambassadorka ka ahayd hadallo kulkulul baa dhankaaga ka soo yeerahay maxaa kugu qasbay hadallada kulkulul maxaa kugu qasbay inaad dowladii aad ambassadorka u ahayd intaasoo dalad wakiilka uga ahayd aad hadallo kulkulul saxaafadda u mariso soo dhow duraan aad iyo aad baad u mahadsan tahay wax loo baahan yahay duraan nooluhu inuu kala garto horta shayga faralka iyo sunnada waa inuu kala gartaa qofku wuxuu u nool yahay wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilaahay wuxuu noo uuntay inaan caabudno oo asaga aan adoonnimadayada cabdinimadayada aan ugu hogaansano ilaahay anigu waxaan ahay duraan waxaan anigu ahay nin Soomaali ah oo muwaadin ah marka aad ogaato xaqiiqada jirta marka aad aragto habka ummadaanu say dalku faraha uga baxay marka aad aragto qiyamkaygu sidoo u baabay marka aad aragto dadkuba sida aysan u ogeyn dalkii inuu faraha uga baxay waxaan door biday in aan u iraahdo ummadda hadda ka hor gabay aan tiriyaa jiro la yiraahdo nimayo adduunka tagiyo arkaynaa aqnaaqis mooyee nin kale waa ogsoon yahay abaartu lahaan jiray la waa dhowr sano idule inkastoo abwaanadii dhinteen odayadii gabayga ilmo shira amiin caamir iyo awliya haraya ammaan heesa eragayga gabay artist iyo sheeko ilaan ammaan heesa waxa iskale moogta qeeldaan eragayga gabay ana iskale gabayga artist iyo sheeko amiin caamir baa iskale oo xaqiiqatan halkaan uga hambaliyeenayo aana hubana inuu yahay hagaha ummadda Soomaaliyeed ammaan heesa eragayga gabay artist iyo sheeko ilayskii dadweynaha niyo aragtidoodii ana oran karo aan baqayn ayba aaminay ajashayda aniga ogsoon inay aayad leedahay waxa ku jiray asxaan looma gala ruux haduu aabaha dilay asagoo itaal daran aadaro aabi lagu toogtay arxan male adooga nin dilay arti mooyeen adigoo isdhaafshaa ka roon ama ka hajiray ahay fiirsha inuu yusufiyo aawa caligeeda amxaar baan amaar loo gelin abadna deynin anigu waxaan aaminsanahay ummadda inaan u dhihi karo waxaan aaminsanahay haddii aan la helin ma waxaad mooday in sidaan aan qarannimada saan iskaga helnay iskagama aanaan helin raximahullah aabayaasheen allah u naxariisto
magaalo waxa ku taala la yiraahdo Goori Ireland ayaa Senegal ku taala waa meeshii slave trade laga sameyn jiray waxa ku dhintay 6 milyan 6 milyan waxa ku yaala waa meeshii Nelson Mandela markii la geeyay aad ogtahay oo siliska marka waxa weeye uu ooyay waxa weeye 6 milyan kama dhimateen haday resistance sameyn lahaayeen aabayaasheen 100 sano ayay waxa ku hayeen berbero 100 sanana waxa ku hayeen marka ayay la dirirayeen gumeystii way banaanka dhigeen sidaad ula socoto hadaan raggii hore dhihin waxaanina maanta ma bilaaban rag baa jiray Talyaanigii iyo Ingiriiskii iyo Faransiiskii iyo Etoobiyaanka la jiray oo ka bacdi markii la helay markii ayaga inta askar loo qortay waa marka meesha uu ka leeyahay Allah iyo Frenchki muxuu doqon fariiday marka la leeyahay anigu waxaan ayaga ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan Ilays u qaado ana oran karo aan baqayn ay baaminay waxaan aaminsanahay thousands in ay maaragtay igu dayan doonto waxaan anigu ku dayanayaa raggii igu horeeyay abwaaniinta ahaa abaan waxa weeye in uu qofku nooluhu inuu maaragtay abaan xumaa diidiyo waayeelku ducada iyo dardaaran dhaqalgala shacabka ugu deeqa dadku ay ka sugayaan marka inaad dadka wax tusto absolutely aad baa maasta qadka telefoonka ana ku noqon doona awliyana oo soo noqon doona hadii la yiraahdo halo ma maqashaa fadlan waxaad ka codsanaynaa in aad markaad qadka soo gashaan TV hortina iska gaabisaan si aan si fiican isugu maqallo barnaamijkana uu noo noqdo barnaamij su'aalo la isweydiin karo oo aan falanqeyn karno halo ma maqashaa qofka ugu horeeya halo السلام عليكم magacaaga iyo waliba meesha ka soo hadlaysay عبد الرزاق انا ادلا hadlaysaa qadkii baad ku jirtaa soo dhawow عبد الرزاق maxaa ku daraysaa barnaamijka waxaan ku darayaa awliya horta waa aad misna wuxuu leeyahay qof masaysan wadiya marka labaad qolada baarlamaanka iyo dambi badan xukuumadda ma la isweydiiyayo maxaad ula jeedaa xildhibaan mas-uulka ummad Soomaaliyeed xafiiskii shaqada ama xildhibaanada dhexdooda seeriyeerinaya koonba garaacaya turba yeerinaya heesaya misna dhahayo ra'iisul wasaariyaal heshiis la galnay oo niri annaga saasa waa inaad nasiisaan intaas percentagekas oo dawladda saama uga xisbiye markaas yihiin mase qabiilin qaabkeeda loogu qaybinaa dabcan su-aashaas ambassadorkaan u gudbin doonaa haddii la yidhahdo asaana nooga jawaabahay dabcan qofka ku xiga waa soo dhaweynayaa haddii uu maqlahayo qofka ku xiga halo may maqashaa halo qofka ku xiga waa soo dhaweynayaa haddii uu qadka ku jiro halo may maqashaa waa soo dhaweynaynaa weli qofka ku xiga haddii uu qadka ku jiro halo may maqashaa halo awliyo intaan qadka sugayno waaya qadka dib ugu noqdo halo may maqashaa ha السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysay aragtidaada ku aadan barnaamijka TV hortada iska gaabi fadlan meel xogaa ku aydan la tag adoo raaliya السلام عليكم عليكم السلام awliyo xildhibaanada iyo daawadihii ugu dambeeyay oo Nasaw Cabdirasaaq wuxuu leeyahay xildhibaanada iyo dawladda yaa dambi badan xildhibaano waxbuu sheegay oo garaacayo miis iyo wax lamida adigana waxbuu kugu tuuray labadaba maxaa uga jawaabaysaa aniga ma maqlay waxa ugu tuuray adigu wax kugu tuuray wuxuu ku yiri ambassadorku waa ambassador waana abwaan waana u qarsanahay laakiin xogaa waxaad moodaa kuleylka meel kale inuu ka wato oo xogaa la daaray ama taydii aan ku horeeyay ilaan waxa weeye afkaaga aan af kale ka reebin oo waa la ka gooba liiri anigu waxba ahayn baan horay waxaan u sheegay waxaan iska horta peace ambassador aniga iyo ragga ila midka horaan waxaan u yiri xilo dhaafay dheef iyo macaan baadhi lay dhigay dhulka ugu hiliya dhawaaq iyo dhawaaq rasaaseed intaan ilka lay dhigin waxaan dhihi lahaa sheegay waanada dhameystir haday dhaga daloolaana dhabti waxaan ku faanaan ka tagay dhumac loo khayr leh aniga horta leelma la luushi karo haduu og yahay waxa igu dhacay xalay iyo hameen hore iyo barnaamijkii ka dambeeyo doodadaag oo aniga hadda yani ama wax hujuumka iga imaanaya hatta internationally iyo kuwa foreign ah
horta saas ma dheheenoo anigu anaaba waxaan go-aansaday inaan qaato sida ay tahay full package oo gebgeb indho lay gaduujiyo gebgebta iyo bootada laabtay ma geliyo waxaan ahay nin geesiya guri laygu dago iyo googo iyo milyuumaad laaluush ma geeyo oo ogow layma gadan karo haddii horta anigu horaan dalka iyo dadka dhawaaqa ayaa wax walba ka daran inaan cabdi maxamed amiin noqdo inaan noqdo halyeeyadii yamyam inaan noqdo mustafa xaaji cilmi inaan noqdo xatraawi inaan dadkaygii noqdo xildhibaanada iyo markaan usoo noqdo iyo dowladda anaa soo koobaya maxaan ku hormaraa tee ammaanaa tee sawaxeeya yani keega daraa waxa weeye the lesser of two devil labada shaydaan midka roon haddii la yidhaahdo xildhibaanadaaba laga helaa xayn يعني حتى حشوته أو ما ركتي رج مهمة يكون أو مر والب برينسبل أو هذا لقى بدنا هذا لقى اللي كرا إلا كونتن اللحد النن أو سيريوسا لكن مركل اللي يراد حكومة ده أو أمل اللي يراد صدق ديمقراطية سيدة قرصون أمل اللي يراد عمر عبد الرشيد على شماك يجا قدرن عمر وانك اللجو إذا هيو إنه بديه شلقتي وانك اللجو إذا هيو إنه وحول بماركتي وياهي وحل الله دورتي أيهين شل داريه دمي وح ما أنت كقدر ماشي جارية كلها نقول ما دين تدعو داسي شل داريه دمي وح ما أنت كقدر أنا أبوان غلا أنا صوبته وحنا هاي أنا بطهاي أو هدات سوقان بلوض أنا لجو إلين كريم أن قد كتلف كان تبغى نقولنا يا برنامج كوا برنامج كي أركتي دوينها معناها طبعا برنامج جاران قلت لك الله أن حكومة ما أنت تو أن وحي ugu dambeeyay wararka ugu dambeeyay aan ku falanqeynayno soo dhaw qadka ku xiga soo dhaweena hal ma maqashaa hello assalamu alaykum salaam magacaaga iyo waliba meesha ka soo hadlaysay waliba aragtidaada ku aadan barnaamijka hadii aad la socotay walaal magacaygu waa Kid Street ama ciyaar jacayl waxaan joogaa magaalada London soo dhaw maxaad ku daraysaa barnaamijka waxaan ku darayaa walaal waxaan salaabayaa dhammaan shaqaalaha Home Cable iyo تفسير أوليو وسيدة ونكتن وقيمة له الجنسي بدنا له الصومال نبض كم وقت أموجي أروح عليها هذه اللي هني لها الصومال لمدة أوليو الصومالية كحروب له واحد اللي هي يتم الجديد نروح عليه أوليو هل كان كاتب ماشي هذه كوت أمتنا وهرسين وحنا كاعد ترينا إلى الصومال أما يوروبودن أما أمريكودن وقشات كمرتين لمكا سيادة قرطان يستدع هذا الموقتا إنكستو أنا عندنا نقام نستدع هذا الموقتا كلية وحا قرنت على هنا سيادة قرطان لدت وصو بدكتين وحنا أوليو وانباطنت هاي عمين دوين تي في يونيفرسال وقاتا وني وحنا وراء الهلسن كاتا هلقا تسيوان Soomaaliya iyo Yurub iyo America tan waxa jecel inaad booqasho ku martid soo bandhigtid nimanka wadanka ku haysta villa Soomaaliya in laga saaro xoog looga saaro kacdoon looga saaro dadku ku kaco meel walba laga soo electric kaco shaqaaluhu kaco dhalinyaradu kaco waxana soo maray wax lamida waagi hore iyo wax hadda jira waliga dambaan arag markan waxa leedahay أوليو ولا أرنت هذا ليش أكتي وين؟ أدبال ما ستاي وأنا كمان لنا برنامج كان نقرأ قيد بشيء أدبال ما ستاي قد كتلف كوسون نقطنا أولي أدان كوسون نقطنا دتكو وح أي أفكار كوهيان حزبي ما قيس الشيخ شيخ هيان دتكو ويا هراي حلقة الشيخ شريف وحلقة يجري على الشيخ قالوا كوح كستو أما دولة كستو أو تمادو وحلقة الماما شبط بالغ نفتح مرك أرنتاسي عدينتهذا واحد هيسميها سواء واحد ضدك سوماليا سيدا ملا أولك مقعدان لا يسبحينها هي قيبك سواء واحد عدينتهذا هذا هيس ولا اللي هرت تن صدر مقدوى سؤال مدونة صدر مقدوى سؤال مدونة دران عدينتنا نهينا ما أنت توحد وجه ده صدق ذي ما أنت شلي على الشيخ وحكسي هري عبد القاسم صلاة ومركي لجوسور دي جيبوتي على سلاح أبوها سومالي مركي والسجي على سلاح سومالي ودورتي على سلاح يسيبوا الله دعي نمانكي لديه شري على الشيخ مركي عبد الله يوسف باود حياه سوي حزب ما ينين ملتري وها وعيدا فإذا لقى جاري فإذا ذي لقى كان واحد 1991 كي سومالي دي وكلا تكتي ويسأمني ويدي أي إسكسو علي في الذي بدي بلوفري مركزو وحو سمي عيدا سومالي لا ذا كتجي مركزو آثار سومالي كتجي شيخ شريف بايمت شيخ شريف شيخ أحمد وحو مركيبة قربها أوجلي قعنته أوجلي على الشيخ أنا وحن كتير أنتي كلا دجالنتي
shacabka soomaaliyeed u sheegtay ilfaha yacni isku soo muruxnay waxaa la yidhi ingiriiska waxay dhahaan bad excuse better than nothing been laguu sheega wax la-aantay dhaantaa markii uu raggii muuqdo activeka iyagu isla haysiiyey dowladnimada uu inta meeshii ka qaaday uu yidhi war soomaaliya anigu waxa weeye waxa hadda ka dambeeya hala ii taliyo oo wixii wax soomaaliyeed uu ka dhigay dadka soomaalida waa soo dhaweeyeen waxaa lagu gaaray faa'iido weyn waxaa la gaaray iyadoon qori la iskaga qaadin in cod lagu kala baxo waad la socotaa hadduusan aysan ahaan lahayn uusan maskaxdiisu aysan furmi lahayn garoowo 1 iyo garoowo 2 iyo road mapkii iyo constitutionkii iyo waxaasoo dhan lama gaareen waxaa la gaaray waxay ahayd arrin halis ah laga tilmaansaday walow barnaamijkaanu kuma saabsana laakiin inta wax la moodo aan wax ahayn aan barnaamij gooniya anoo ka codsanaya duraan iyo hoon kebalba inay fursad ii siiyaan oo la yiraahdo ka durkoysun la iskuma dayo daawo laga waayo aan ugu iftiimin doono inta aan maanta xataa waxayn laakiin wax la moodo aan barnaamij waayo yacni arrintani marka sheekh shariif markuu aan ka xoreynay waxa weeye lana dhihi kara waa ka farmaran yahay hadda ilaa hadda laakiin ogow in aad xataa dadka aad qanciso oo change aad wejiga la bedelo oo waa wax dhan xasan sheekh u soo noqo nimankan waa la ogyahay waxay ahaayeen 2000kii markii carta la sameynayay cabdikariin iyo xasan iyo faarax waxay tageen meesha la yiraahdo carta waa ku soo hongoobeen rag heavyweightaha joogay waa lagu qoslay waa soo noqdeen way sabaabileen muslim afriqi baalkii ayay waxa ka sameeyeen oo badigiisu yahay Soomaaliya iyo Kenya iyo ayay ka sameeyeen xisbigaas akhwaan al-islaax garab ka gooni markii dambe ka go'i doono damajadiido al-islaax laba qaybood u kala baxo baadiyo oo ragga tacliinta iyo qaranka iyo aaminsan iyo qoladan damajadiido iyagu qoriga aaminsan ayay u kala jabeen sidaasay ahayd qadar baa wadata wax qarsoon maaha eletriyay ku xiran yihiin inta shabaabka taageerta iyaga taageera wax lagu la isku qarinayo ma aha hotel shamo bay kula sireeyeen maalintii Cabdiwali Sheekh Ahmed markii uu yimid intii ka horeysay iskaanka ayaga ninka la keenaya Marya niman carab oo mutadawiciin oo garku inta la egyahay waxaanu ognahay in laga hago qadar waxaanu ognahay inay iyagu yihiin ururkaas damajadiidka la yiraahdo waxaanu ognahay inay iskuulaadka iyo tacliimaadka ku dhigaan waxa kamida jaamacadda la yiraahdo Simid waxa kamida ilays ninkii cirfa hadda dhuu sameeyay u dhiibteen oo afgooyo deganaan jira kamid ah waxay leeyihiin branchyo badan waa niman sophisticated oo dadku aysan fahmi karin in uu Soomaaliya iyo saaxiibada Xasan Sheekh uu doortayna international community kuna waa ogyahay Soomaaliduna waa ogtahay yacni in muuminka hal god laba jeer lagama wada qaninaa la yiri way ay ku dhacday inuu faarax madaxiisa uu saacid rido oo Cabdiwali uu rido oo Umar Cabdirashiid uu keeno laakiin aan ka dhaxgalo dad badan baa waxay qabaan in مسؤول والبا أدونك أوليه أما حسبي وقرب صار أوليه أما صاحب جار أوليه أما أطفال الرجال الطليال جار أوليه ما حاسق جوني كده إن لفقه قول لي هذا إنه يسأك هذا إيمان وحفقه وحكيني ولا لجوني ده وحكيني وحلقها الله يا وحوي حكومة سواشة حق دورندت كذا حلك يدلكوا يحلفوا إسكوكوا بتستورك حشمين حساب تحكميسا ما فهمتي حلك يدلكوا يحلفوا إسكوكوا بتحاشي إلى فرش حق جودن بس وحلا دي ده warhaantidii shilin lagama siinayo dadka canshuurtii dekada iyo aeroboortka iyo kasoo galaysa gobolka Banaadir dadka koobshaha kama arkayaan xilkii ayaga la siinaya revolutionary ba qabtay dadku waxa la rabaa ummaddu waxa la rabaa inay dadkan ay sidaan ku sheegayba nabi maxamed kaleey salaatu salaam baa la lahaa dhageyso oo la shir oo la tag oo khayru khalqillah wax ku soo degayo waxa la leeyahay ayay way duraa waxad bad leedahay wax xilkii bay qaateen xoolihii bay qaateen meel walba waxa ayaga qabsanaya federalism systemka ummadda uga faa'iideysanayaan meel walba nin ayagu leeyihiin bay u dhiibteen meel kasta ay qabsadeen kiigi oo dhan waxa dhan oo dagaal ka bilowda Cabdiwali iyo ayaga waxay ahaayeen waxa weeye federalismkii iyo constitutionkii in ayagu bedelaan oo la jabiyaan waa yahay qadka taleefanka dadweynaha waa u sii deynaya hadii la yiraahdo hal iyo laba inta ka gaari karno waa soo dhaweynaya hal ma maqashaa qofka qadka taleefanka ku jira hadii uu ku jiro hello awliyo hal ma maqashaa halo walaal wax maqlaa assalaamu alaykum alaykum salaam walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysay waliba aragtida ku aad barnaamijkan aan ka hadlaynay barnaamijku uu sii balaartay laakiin qorshaha aan ka hadlaynay wuxuu ahaa arintii maanteeto dalabaadkii ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke baarlamaankuna ka aqbalay muddo 14 cisha la siiyay inuu jaaniskaasi dawlad cusub ku soo dhiso soo dhaw maxaa ku daraysaa
walaal horta marka hore asalaamu calaykum magacaygu waa sayfudiin ibraahim marka waxaan kasoo hadlayaa magaalada minchen ee wadanka jarmalka soo dhawow adiga iyo duraan iyo waan idin salaamay ambasadoorka intaba waan idin salaamay marka walaal horta waxaa jira aragtida uu hadda ku taagan yahay aragtida uu ku taagan yahay ambasadoorku horta 99.9 de lama oran karo 100% waayo adduunka oo dhan waxba ka dhiman laakiin 99.9 wuxuu sheegayo dan waa waxaan anaga oo dhan wada jeedno daan iska inta tireen waa waxaan anaga oo dhan wada jeedno muxudiin maxaad u jeedaa maxaad arkaysaa ambassadorkan ugu markhaati furaysaa maxaad u jeedaa hal iyo laba nooga taabo walaal waxaan u jeedaa horta dalka Soomaaliya ma aha mid anigu 100% aan ka maqanahay ama aan maaragtay de Jarmal waan joogaa oo doon deganahay laakiin waan aadaa waan soo laabtaa ma ahan dal aan ka maqanahay shaashada caalamkan waan ka fiirsadaa dawladda iyadu hal mid bay ku qaldan tahay hal mid way ku saxan tahay anigu mid waan ku taageerayaa de dawladnimada inaan anagoo dhan wada raadino waan ku taageerayaa ma garat walaal duraan si fiican laakiin waxaan kaga soo horjeedaa qof aan adduunkaan xisbi lahayn ma jiro qof waliba xisbi ayuu leeyahay laakiin xisbiga uu leeyahay waxaa wanaagsan qof shalay adigu aad u jeeday oo adigu markhaati aad ka ahayd intuu kuu yimid duraan aad tiri anigu wax ma qaban karin ku yiri miiska kuu soo saaray maanta si aad adana ummadda ugu soo celiso walaal ma jirto waa ceebteeda ka weyn weliba haddaan la xishoonin meesha xishooda oo linde haddii marka qofkii shalay xukunka qaban waayey ee xukunkii kuu dhiibay ku walaal waa iga bisintaa ka badan waxba ma qaban kara aad maanta ku soo celiso dee dalka adaana horumar u rabinay madaxweyne dee adigu ummadda ilaahay way ku ixtiraamtaa madaxtinimaa lagu ixtiraamaa wax ummadda ilaahay raalli ka tahay keen haddaynan ahayn dee faraha ka qaad